السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aniga walaalkiina bashka bashiir oo idinlaha lagu soo dhawaado YouTube channelkayga haddii aad tahay markii kugu horeysan soo booqato fadlan ha iloobin inaad subscribe bacbac ku siid video la gare aad u mahadsantahay sidoo kale maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkii ku saabsanaa dalka Qatar marar badan ayaa isoo weydiiseen kasoo hadal maalmahan waxa uu joojisay barnaamijkii su'aalaha ku saabsanaa dalka Qatar so adiga daawanaya muuqaalkan haddii aad qabtid su'aal ku saabsan ama wax information aad ugu baahneed dalka Qatar ama qaliishkoo dhan commentiga noo soo qor so waxaan isku day doonaa dhowr su'aal inaan ka jawaabo aan si fiican idinkugu sharaxo so ila dhamaysa muuqaalka ilaa dhamaadka su'aasha ugu horeysa walaal bashka waxaan ku weydiinayaa deganaanshaha Qatar qiimihiisa waa imisa qofka wuxuu weydiiyay horta deganaanshaha Qatar waa imisa deganaanshaha horta waxaa ka horeysa in aad imaadid dalka aad ka qaadatid يعني إنا إمادي دالك أد فيزا كسوق قشو فيزوينك أيا كلا فيزوينك مركات سوق قشو دقناشا هديا دي مادو دقناشا سند ليه أيا إقامة دلو جديدية سو سند كي يعني الديبنديس قف فيزا كسوق قشو يكو حرين قيمة صح أو الأوجي هاي دوت كوران لقوا دقادة مجرد ولي بهدي أد شقيسيد قف شركة أو شقيسيد أيا كاب بحنيسا أما شخصي أو شقيسيد lacag ba kaama bacaysa deganaanshaha iyo meesha iska joogtid caafimaadkaaga wuxuu dhan waa free waa garatay sooma marka qiimo aan idin dhihi karo ama waa intaas aan hadda hortiin aan ka sheegi karo ma jirto su'aasha labaad assalaamu calaykum aniga hadda waxaan wadanka joogaa ilaa muddo 3 bilood ah hadda shaqo maan bilaabin sababtoo ah waxaan ku imaaday fiisaha haya marka su'aashayda waxa ay tahay fiisaha haya ma leeyahay sharci أنا فيزا كوجوغا مشاقين كرا يعني أنا ولي شرعي هلين مي هيا هرتو حالي هذا برنامج كهذا وحب الله حلق عيارها والكابكا مركا هذا هيا كوسو قشو طبعا مشاقين كرتي even لكن وحا اوبشن وحا ليدا هدي الشركة عاد اسفهنتان المقالة دا قشو عاد اسفهنتان كدب وحا سمين كرتا انتا اكزيت اياد سمينيسا ودن كتكبحيسا وصون قريسا fiisa kala wadanka companygaas markaas aad ku qaatay ayaa fiisa kala ku soo diraya aad ku shaqeynaysid waa garatay sama so teeda kale wuxuu yiri fiisa hay horta mar hada ku soo gashay hay waa visit visa la mid tahay sanad ha ahaato 6 bil ha ahaato ama 3 bil ha ahaato intay doontaba adoo hay ku soo galay yani deganaansha ma sameyn kartid yani haday dhacdo waa process aad u dheer ama يعني وهو لا دير لكن نورمالي هداد هيا كوسو قشو وإنا الإكزيت سميسا كدب فيزا عادي نورمال هناك كوسو قشا وفهمتي سما سؤال شكالي صاحب وحان هيستان لعاق إيو باسبوركا سيدين كو إمادا قدر ما وحان كو إمادا كمباني إسي أنا إسكينا وحان مقلي وحفي عن مركا أدي إسكين تم مقعي magacayguna waa xakiin bilis jojo horta qofka wuxuu yiri ma waxa fiican inuu company ku keena ama ba toos free visa inaad iskeento company-ga ma aqaan muuqaaladeena hore hadii aad la socoto waxa jirta company si toos ah wadanka kaaga soo qaadanayo mostly wuxuu badan yihiin Kenya Soomaali adi Africa whatever wadanka ay joogtid way ka soo qaadanayaan shaqadooda noocay ahaataba waa company wada badan yihiin muhiimadu waxay tahay company ku soo qaadanayo asaa ku keenayo dooxo ku keenaa caafimaadkii wixii ku marina markuu ku mariyo aad ku guuleysato waxa gadan sharciga ku sameeyna guriga ku dejina magaalada gal shaqeyso no sorry magaalada gal shaqeyso ma aan shaqada ay ku keeneen oo marka aad wadanka joogtay interview laga soo qaaday ayaad ka shaqeynaysaa waa fahamtay sooma company tikala way jirtaa adi iskeenay marka lagu leeyahay waa company waa same mar walba adi company ba mas'uul ka noqonaya ama shakhsi so waxay la mid tahay taas free-ga ada imaanaya shaqo ma jirto lacagta caafimaadka iska bixinaya guriga degleedada kirada iska bixinaya yani hoolahaaga dhan lacagtaada ama qarashkaaga ayaad ku dhamaysanaysaa intaas markii aad dhamayso kadibna shaqana ada raadsanaya adiga calafkaaga nasiibkaaga waxaad hesho so horta ani ahaan qofkii helayo option ah inuu company toos u soo qaato oo deganaanshaha sharciga wax ka bixinaya taas haraaca ayaan dhihi lahaa sababtoo ah hadda waxaa jira dad dhalinyaro badan oo ku dhawaad 6 bil 3 bil
5 bilood joogo weli shaqo la'aan ah ayagaa iskeenay qarashka sharciga deganaanshaha way qaateen welina waa shaqo la'aan wadanka shaqo la'aan way jirtaa dabcan meel walbana shaqo la'aan way iska jirtaa laakiin in la raadiyo u baahan tahay nasiibkaaga waqtiga kugu qaadana ma ogaan kartid aniga hadda kula hadlaayo wadanka xilliga aan soo galay even not now sanado ka hor saasay ahayd meel walba markaad ku cusub tahay aad adiga isoo dibirto qarashkaaga adiga aad iswadid waqtigay kugu qaadanaysaa inaad shaqo hesho waa imaaday shaqo lacagta liiga baahan yahay intaasi waxa dhan sharciga qaatay horaad ka shaqeynaa ma jirto shaqooyinka way adag yihiin sababtoo ah waxaad la diilgaraynaysaa hindi oo intaasoo milyan iyo eeshiyaan philibiin wixii la dhahayay bangladesh dadkaas wax ka tira badan ma laha ayaa wadankan usoo shaqatay weliba ku shaqeynaya lacag aada u yar ayaga maanta $200 $100 wixii la siiya buu hadal kama soo celinaya waayo qof wax usoo diraya ka dambeeya oo ma jirto laakiin soomaalideen oo kale intuu qofka shaqo ka helayo waa la saacidaa soo ma so ayaga wax saacidaa ma jirto so fursadaha ayagaa raadsanaya maanta waxaa laga yaabaa like normally dee wadankii markay ay joogaan xitaa ayaga haddii maanta $100-200 helo ka badan so qof heli kara lacag raqiis ugu shaqeynaya qof lacag badan qaali rabo cidna ma dalbanaysa so Soomaalidaas waay oo fursadahooda ama shaqo la'aanta halkaas ay ka imaadeen so adiga waxaa laga rabaa wadankii hadiiba aad imaaday wixii ka hor imaado shaqo ah qabo haddii aad maanta $100 bishii meel ka soo galaysa way ku wanaagsantahay kiradaadii waxaaga waa iskaga bixin karta waad ku sugaysaa yacni micnaheeda ma aha $100 inaad for lifetime aad kusii shaqayn doontid waayo wadankii waad imaaday haddaad tiraahdo $100 $200 $300 kuma shaqaynayo waayo waxaan rabaa markiiba inaan $1,000 ka bilaabo dabcan waan dhaqaanaa shaqooyinka badanaa u badanta soomaalida $2,000 yacni waan isla ognahay shaqooyinka ognahay way jiraan laakiin intaad ka gaaraysid wax lagu sii sugaa la rabaa ma dhahday ma raba lacag shaqo lacag yar soo dulqaad lahaa intii aad ka helaysid shaqadaas lacagta badan raadis badanna way kaa rabtaa hadhow hadhihin wadanka waa kusoo lugo-ay dabcan ani hadda muuqaalada qadar sababta u joojiyey ku dhawaad maybe 3 bil 2 bil muuqaal qadar ah uga hadlayo su-aalahan ma soo dhigin waayo commentiye qaar waan arkaa dabcan ma raba inaan kasii jawaabo qofkii u jawaabtid dad ay waxay ku leeyihiin bashko wadanka waa nagu soo lugoysay shaqo ma lahan dadka beenta ka daa views baa ku raadsanaysaa waa garteen saba ani markaan aan horta muhiimadda koowaad waxay tahay horta ani wadankan informationkiisna ay soo weydiisan baa idinkaga jawaabay mahan qofna fiiso uma soo saarin qofna wadankan lacag shaqaa ku siinaa kaale ma dhihin wadankan dadaan ka shaqaysta ani keligay ma waa laga hadlaa maadaama ajnabiga kale ay luuqadooda ugu hadlaan ay u sheegaan dadkooda qofkii wax u baahan information ugu siiyaan anigana informationka ayaan soo gudbiyey haddii aad shaqo heli weysa micnaheeda maaha ani inaad eeda i saarto shaqada aniga kula hadlaayo waan horaan kugu sheegay waan ku dhiirigeliyey waxaan ku yidhi shaqada raadi saasaa loo maraa wadadaas ku raadi subaxii kac laakiin soomaaliya tahay waa dadaalkaaga aada u yar waxaa rabtaa wax walbaba meesha u saraysa inaad ka bilowdid lacag badan inaad ku shaqaysid so markaas haddii aad weysayna yacni aad fadhisa habeenkiina waa dhafraysaa markaas waxaad bilaabaysaa inaad khariirtid khariirna weligii inaad taqaanin anyhow muhiimadda waa taas haddii aad wadankan imaaday aad nin rag tahay oo go-aan leh shaqayso shaqana haddii aad weysayn intaad ka helaysid hal maalin ha fadhiisan aynow anigu waxyaabo badanaa ka sameeyey even muuqaalo short films aa ka sameeyey qaabka shaqada loo helo inaan shaqada hore laga helaynin even CV-gaaga 100 CV ayaad meel geynaysaa waa la qabanayaa qashinka lagu ridaya so it happen wax walba way dhici karaan laakiin adigaa lagaa rabaa inaadan niyad jebin almost wadanka waa joogtaa haddii aad isdhahda isdhiibtay aad waxba meeshan kama qaadi kartid as leedahay wadankaaga u laabo ya dib ma laha wadankaaga u laabo meesha ka imaada raaxa waayo meeshaas lacagna ma lagaa rabo kire ma lagaa rabo so laakiin haddii aad kusoo talgashay inaad shaqaysato naftaadana hormariso wax walba dhaqaaq teeda kalena noqo qof ilaahay ku xiran aniga waxyaabaha iga saaciday shaqada waxay ahayd markii aan wadanka aad shaqo raadiyey aan heli waayey wallaahi tabliiqaan raacay masaajidkaan iska galay ilaahaan baryay salaada tukaday kadib ilaahay wax ii fududay so waa muhiim inaad adiga wanaajisid xiriirka adiga ilaahay idinka dhexeeyo soo masaajidka aad halkii aad habeenkii aad dhafartay subax ma kici karaysid shaqada fadhigaa kuguma imaanaysa soma
soo isku day taasna waa muhiim. Ducada badi duceyso, waalidkaaga kule uu kusoo duceeyey markuu kusoo dirayay, qarashka kugu soo daray, wuxuu kusoo baray haddaad wax jaamacad soo dhamaysay, haddii aadan high school aad tahay at least wax buu kusoo baray. Qofkeena ugu yar oo meeshaan imaada waa high school. marka shaqooyin badan ay jira meeshan, shaqo jaamacad iyo waxba kaagama xiran. Even adigoo jaamacad wato oo hindiya master kuwa kasoo baxay ee waqti ku qaadatay. So dulqaad lahaw, teeda kale masaajid kala duceyso, salaadooda badi, salaatuleel tuko, insha Allah waad helaysaa shaqada. marka muuqaalada aad commentiyada aad soo qoraysaana aad dhahaysaan bashko adaana keenay meeshaan shaqo ma jirto, shaqo maba jirtaba waa ogahay. meel walbana waa saasa. dadka hadda aaday Mareykanka, wadan walba aad aaday shaqo, markaas wadan walba aad tagtid waxaad helaysa ma jir. sanadka ugu horeysa ilaa 2 sano ugu horeysa intaad kasoo kabsanaysa waa aad kala qabsanaysa wacyiga meesha wadanka. so 2 sano kadib unbaa adiga lagu xisaabin karaa waxyaabaha aad qabatay. waa fahaysaa muhiimada taas inaad fahanto isku day. waa ogahay waxaa rabtaa inaan degdeg horumar lagu gaaro. saas haddii lagu gaarayo qof walba dee meeshan joogo waxaa waaye waa lasoo sheegi lahaa. so meeshaan wadamo badan oo usoo shaqo tagaya jira, challenge badan ay jira. isku day inaad challenge-gaas adigana dhinacaaga aad ka gasho, aadan fariisan, aad dadaashid. insha Allah muhiimadana waxay tahay inaan alla ku xirnaa. wixii kuu qoran ma weynaysid. haddii meeshaan markaa imaanaysidna koley calafkaaga nasiibkaaga ahayd inaad imaadid. hadday kuu qoranta inaad ka ceeshid, aad ka shaqaysatid, lacag ka samaysana waad ka samaynaysa. haddaysan kuu qorneenna dee meelo kale ayaa kuu qorane is leedahay meeshaan waa fahmi waaye, option kale raadi, dhib ma laha. taas waa samayn kartaa adiga is leedahay koley dee adaa ka warqaba xaaladaada iyo qaabkii aad ula maamuli karto. so muhiimadda maanta waxaan jeclaysa intaas inaan idinla wadaago. haddii aad jeceshihiin ama aad xiiseynaysaa inaan barnaamijka qadar waxyaabihii faa'iidada leh oo optionada ama idea ama dhiirigelin ahaan idinku soo kordhiyo, waan idin wadaya. haddii aad leedihiin iyo bashkow amaba aad soo qoraysaan commentiyada dambe, ani kule muuqaaladeeda kala ka badan dee maraba qof bini aadan maanta aan isleeyahay wanaag iyo wax u sameey in haddana aniga eed liigu soo celiyo. soomaalina way taqaanaa, waa wax laga wada yaqaana. so muhiimadeyda ma ahan ani maalina kama shaqeyn inaan qof fiiso usoo saaro amaba meeshaan keeno, kuma fikirinba. dadkii daawanayana way ogyihiin kule barnaamij noocaas oo lacag iyo idinka lama hadla, kambani xitaa idinkuma soo xirin. muhiimadda laakiin wixii informationa dadka cusub, maadaama aniga aan muddo badan aan wadanka ku jooga experience ahaan ayaan jeclaystay inaan waxyaabihii oo idin iftiimiyo. kuley dee aniga qof idin shaqo geyn kara miihi, laakiin aan liste xataa wax information qaabka lagu helaayo inaan wadooyinka idin tuso. so haddii laakiin wadadii ay usoo celisaan dhibkeeda ay leedahay. so I hope inaan ila fahanteen. soo waa ku dheeraaday muuqaalka. insha Allah intaan ku kulmi doona muuqaalka xiga waxay idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. peace and love. nabad ag shaqeyn.